كان وشيخ علي مكلي أو قرآن كل دجالما يجيني ويل كاسير عنها وجدجن مركز تاو شيخ وعد دير كو أخرج صورتها قرآن كإجينك كهالينا وحنين كان لن يراد أهي ولد دجالما يا أو جد جركيسة سيدا قف إسكافو جناي وح كل جن أو كله رجع هل كان لجود وينه وحكده حظ يا هوين ست هاس لما إذا نتمر كهل كان يسوينه وحي تبنى وين رجع وحي نشاكده يسوي جرتا سحر جني يقل tani waa mid ka mid ah boqolaal gabdho oo xarunta qur'aan saarka al-cilaaj ee Sheekh Makulli ee degmada Hodan lagu daweynayo 7 rag oo ka dhex hadlaya ayaa intuba sheegaya inay jecel yihiin gabadhan waajalateen hadda jeceshiin bari waay waalidkay u rootay aabaheeda aastay hooyada haysataa nin camal xisaabtamay nin camal xisaabtamay ما مغشاني ما ماليسان باكوي وريا ما ماليسان ما بعيسان خايم مية ها ما حد يبغى يستني شيء واشين ويعنوفي وين الدقالي وردنا المله ما بعيسان هذا الكاك بوحو تقي سعد مردم به ميري تاجت هاي راك عند راك مردم به ميري تاجت هاي xaruntan oo furan maalin kasta waa kasta oo bariya waxa yimaada boqolaal bukaan oo rag iyo dumar isugu jira tani waa ruqiyo waa maalin kaga duwan maalmaheedii hore ee musiibadu ay haleeshay maanta ma jiro qof ka xeenaya ama garabka ka haya waxa alle uu mar kale u suura galiyay in ay arageedii dib u hesho waxaana sabab u ah quraanka halkan lagu saaray maalmo kama aysan qayb qaadan hawsha qoyska maanta se waa maalin kaga duwan maalmihii soo maray oo kaalinteeda ayay qaadanaysaa alxamdulillah xaaladaada aroon hadda indhaha caadi ah ugu arkay awlsi ka ajiri jimciyo xanuunta qabta bal aashishada guriyaan anu nabad qabantay oo lugahay ku soo quraanka markii loo saaray indhaha ku furan waxa ka hadlay jini ka hadlay حور الله أنا كاسم. قدر له وكفي. الحمد لله. وهذه عند كنا عند ذكر الحمد لله. ما شاء الله. أيه. عند هذا حنون ما كدرين. مايا. وليس ما درين. Sheekh Cali Makulli oo hawshan dar alle u qabanaya ayaa inoo sharaxaya sida uu u daweeyay haweenka iyo ragga bukaanka ah ee u yimaada. waxaan la arkay nabiga wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka gurigiisa markuu ka soo baxayo bismillaah tawakkaltu cala allah la hawla wala quwwata illa billah duu yiraahdo malaa'ig baa la hadlays waa lagu kaafiyay waa lagu hanuuniyay shaydaan oo dhan ba ilaahay baa ka xifdiyay wax ku qaban kara ma leh ducadaas qofka kaga soo taga ducada wuxuu nabiga sheegay calayhi salaam guriga markuu qofka galaayo bismillaah walajna bismillaah qarajna وعلى ربنا توكلنا هدو يرادو شيطان كي بنانك كو هرايا وحو لي عاو هو ينصيحنا وما مسقنانين ونظر مركو عنايو النبي عليه الصلاه والسلام بسم الله هدو يرادو شيطان كو لي عاو ميلا صيحنا مله waxaan cunana ma haysano leey maxaa shaydaanka celiyay inuu guriga kala celiyay inuu cunada kula cuno ka celiyay inuu magaranaysa xaaskaaga kaaga celiyay caruurta inuu magaranaysa kaaga celiyay waa adkaartu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii inta la helo والله ثم والله وحنا دم جركينا ما سو غري كرام لكن ما hadii laga taga soo maaha quraanshada soconaysa qofka qaniis saasa ii fiirisay waa galay wuu fiiriyay wuu la yaabay ma sha Allah wadii dalaq jinkii waa arkay jirkeeda iska furan buu arkaya dalaq waa albaab furan dahab hanti dahab yaal ama dollar yaal albaab furan tuugsi u yahay sidoo u yahay waa qaadana hor ka qaadanaya sidaas oo kale u yahay dumarka waxay ugu bateen marka waxa waaye qafladii iyo weysalaanta waa qafladii baa yaraab garanaysa badatay adkaartii iyo weysadii waa laga tagay shay walba qof iska galay marka shanan galay daradan galay iskuulka ka raacay waa qurux badan tahay socodkeedii aan la yaabay labiskeedii aan la yaabay waxyaabaha ugu daran waxay ahayd gabar baa laga qeyliyay oo maxay tihiin insi baa naay waxa kala taan gabadhan ahaa waxaan ka rabnaa cadar ee marsataan noo sheegay dhan way noo diiday saasaan ku galnay waxa keenay waa maxay waxa way qofkii adkaar ma haysto qofkan hadduu qofka wax u diiday caloosha waxa uu qabtay sheedaanka intaas ka qaasana hadalka adag oo qofka la yiraahdo kale hadalada adag oo qofka ma garanaysaa xaqiiqda indhaha laga saarayo waxyaabaha la iska soo raacay kamid tahay iyadana insha Allah haddaan halka meesha u arinta kale ee la yaab kale waxay tahay in xitaa sheekha ku dhiisa mararka qaar
weerar lagu soo qaado oo dadka xanuunsan ee uu daweynayo loo adeegsado, taas oo jinniyo ay soo adeegsadeen sida dhacdadan oo kale. saaxir lacag igu soo qaatay waa ii yimid gaari baan ka raacday wuu soo dahay afgooyi saaxirka Djibouti baa lacag soo siiyay gabadhan iyo ninkan iga soo sixir buu yiri. muxuu watay dharkii muxuu watay ninkaa dhar casaana qamis cas buu watay iyo koofiyad madaxna wuu xirnaa muxuu iska dhigaayay dadka caadiga isla mid dhigay markaad tagtay ayuu u damcay inuu ka soo bixi waayay lugta xanuuntay oo ka soo bixi waayay inta oo meeshan joogtana wuxuu damcay inuu indhaha kaaga shubo laakiin uu kaaga shubo waayay fursad uu ku waayay وريا ساحر ما يبغى شعر محل لو تلقى السعر محل لو تلقى هذيك إن لقى حلو قبي قبل قطوف فيها ودك كمان اللي جساره يا مقدش أنا اللي جساره مرت ما بسولا والمال دمنا قران كاخرين مال دبي ساعة سريرتك وارورة قران تبع أنا آخرين qaar ka mid ragga iyagu halkan la keeno ee bogsooday ayaan la hadalnay, waxayna ka hadlayaan sida xaalkooda uu ahaa iyo sida hadda uu yahay. عبد الجليل حسن الإلهاني تريد شانو قربال يقول على سوق هذا ماشي عليك يعني معناها أمير الآن ما شاء الله أنا نظيفة بحوية معناها وحبقة منه صار ربعي إنك ضعفان أنا أهل المسجد أنا أهل إسك مسكين أنا شرافة مركز كدك دوبلي تمن يو كوس أنا كنا الله يقول لي دت معايني دت مديو منك إسك تبليغه إسك دتك إسك وعدي أنا هاي مرك إلهي وبري أنا دم دافع إنه إلهي يقدقه شيخا إنه إلهي يعني جنة وبشارة دتك سائية لنا عفي مسامح.